وكليه فكر انت شيء في الصومالي كما شفتوا لا تحول اسمها هذه مغادرة فرماشية إلى أحد الدول الأسود الإسلامية waxay qaateen kagaalada xoogii USD ay ka adkaadeen oo maanta ay xukunkii Soomaaliya gacanta ku hayaan taasoo dhamaatay ayaa weeye talabada waxa weeye waxaan dooray gobolada munaasabale oo nimanka iskaga shaqaysanayaan Maxamed Weliya iyo Abdul Gaas ku shaqaysanayo oo dalka u dhigayo quruxda doona ka saxanayo laakiin adduunka uu la socdaa Soomaaliya laba dal ahaayeen حتى أنا الدوال كل شيء ولي مكان يشيلين وحتى لو السعودية هذا استاجين نرجع صح الله يوحوها فرلان أو دولة معها شتاء أو شقيسة أو إسقاط بلان أو نقالة قاعدة وحكتها معها يجا أفتح لجوبوريا أو في كلام بحية أو في كلام بحية نرجع هذا وده بيكون مسلمان أنا ينوع في عنده بعد ذي يسوين إسلام oo ku cadaawada qabaan siyaasiyiinta Soomaaliya isbeeshii farmaajo waxa ku adeegay maray oo maalintii Maxamed Saad la doortay inta loo bedelo loo baahnayo waxa lagu doortay Soomaaliya loo soo dhaweeyay markii dambe waa kii caanka reerka qaatay qadiimiga noqday waa kii shooga laga saaray Nigeria ku dhintay intaantii uu maro jeenta loo dalbay waxa uu Soomaaliya yaqaan isla wax u bedeli doonaa waxa lagu doortay Soomaaliya laakiin caanka uu qaatay في أديك ولا صوب حي وجهه وصل صوب حي إذا وجدي أديك ممرضنا فما أنا إستعد معمول أو كتم في حمر أي صوب سيني بتشوفه يوم الحياة يكون هو سيني بيتشوفه وحلا وصوب يوم الحياة يفوتنا تبقى شقة سنة يعني وحنيين كلام السكتو أديك كنا سوينا نقول الشقة وجد شراء النبضة وحديثي وربما كاني ودمائي كاني أنا لما إزاي كنت أتعلمه على الكتب بالسرقة إنما العرش حكومين مجال شوية إنما غير مثال وعدوني واتا وحنو دمك تبقى حاليا أنا حروش شيء وذلك waa gartay dabcan dawladdu waxa ay sabab uga dhigtay codsiga beesha caalamka ay u gudbisay gaar ahaan deeq bixiyaasha in Somaliland ay wali mowqifkeedu ku taagan tahay oo ay suurtagal ahayn nidaamka federaalka in dalka uu ka hirgalo lacagta la siiyo hadii ay sii socoto sidaba arinta u aragtaa anagu dadka jiray Soomaaliya anagu Soomaaliya magaalada Soomaaliya ma dhaho anagu shaqo wadaad ma dhaho kordhisha anaga ilaahay ku dhigay ka dhigay magaalada hoggaanka ku ay gudbintay hadee boqortooyada aan hoggaanahay oo maanta arkaysa dadka xukuumaya sida Soomaaliya fadhiya وحوي سعد ياسين وتقبل كلها وحوي أحمد سعيد وزيد برواه وحوي شمال وغير أربعة يعني وفرماتشو وغير مغانسة محافظة كما سميتها هذا هذه تبكي جلسة لها سوى الجميع يقدر يجيج فشيس كده بيمان تنين لكي مغران أركا وحوي النسي تفاهم سوي يعني ولكن يو تبكي تاجين سوى بعضه وما بعضه فكي هو نحيسنا نعم نحيسنا waatahay laakiin Faisal Cali Waraabow deeq-bixiyaashu dalabkan dawladda federaalka ay u gudbisay waa ay ka soo jawaabeen oo la xiriira in dhaqaalaha Somaliland laga jaro waxayna yiraahdeen Somaliland waa la sii macaamileena dhaqaalahana waan sii siin doonaa sidee bay kula muuqataa arinta ما حصل إياه عدوان إياه فرماشي إياه شباب سيارة إياه مصير إياه هو أقول إياه يمكن كرة الدفاع وتماذا يروح السوبر باور وهذا كل شيء شو بقى يغير أنا ناس سويتر أقول لك هو بدل جاره سياسة ولا سياسة يوروبيا يصير إنجليزي يصير بدل كذا وعلى بعور يعني هو أقول لك هو الشباب لو حمر كان شوفين Somaliland شوفين ولا فيروسان يا رجال الدول والأرض فواوا marka hadiiba ay dhacday in dawlad goboleedyadii ay dawladda federaalka ay ku raaceen in kastoo beesha caalamka ay dalabka diiday oo ay tiri Somaliland waa la sii macaamileena wax saameena oo hadda dawlad goboleedyadu ay idinku yeelan karaan ama arinta ku yeelan karaan miya ku muuqanaysa waa waxa ku dawladda ma jira
gobolada jirtaa ma jirto qodobka hada Jubbalandna waxa haysta waxa weeye waa professor Kenya oo Kenya sameeyay weeye South West waa isku dhow Ethiopia professor Dawtai meel kuwan ee dadku sameeyay magaalada Saaid galowga boosaaska wuxuu beeshay hubaysan waxa dadka caruur sheekeynaya waxay ku hadlayaan wadi arkay waxa ka boosaaska ala wax bariya ma jirtaa sidoo jama qaadaya siyaasadda ma qaadaan adduunkana ma bedeli karaan hay bedeli karaan iyagii baa la qaawan oo marada la saaraya iyagii oo baqtiga wax haysan baqtiga haysan awoodda haysan xubnaha haysan taageero haysan waa magaciya nasiibada waxa ka sheekh anbixiyay dalkii dawladda iyo sheekh Ahmed oo soo baaqka lagu soo sameeyay magaalada Saaid garowe daadini USC Kenya awood u diiday ay isku anbixiyeen waxa maanta nasiibadooda ama laga haysto fiila Soomaaliya aan soo ku jirin kareen lagu diiyo suuqa kala kala bixiyo markii xilliga lagu diiyo hadalkii ila Cabdirashiid inta kala garaacin kala bixiyo hadii aan ma garaaciyo midna wax ma qadimaayo waxna yeelinaayo ayala waa naqaanabadna waa naqaan waa ta marka dhaqaalaha adinku Somaliland ahaan beesha caalamka aad ka heshaan qaybta idin kaga soo aada oo Somaliland ay hesho maxaa hadda ku qabataan maxaa dhaqaalaha horta hadda uu fududeeyaa waraanagu dhaqaalaha saa uu sheegay laakiin hadii waa macaamilada wadiya ma dawladda ladinama soo martiya si gaar ah wixina ladinku siiyaa dawladda ma jirto idin dawladda ee magaalada farmaajo dadkina ku leeyahay suuqa anaga manuula dawladda anaga ayinka ku soo لو كان كثر من الدولة في ولاية يمكن لحد الشيء ضروري أو أفضل لي مثلا أنا يروح مثلا فرماسة خدنا بيجي الدول نحن نيجي ترى وإحنا غلطنا على ما أحبش الدول إحنا مثلا يمكن الدولين يا يمكن جت حمد وشو كنت سوينا يا عرش في عرش شيء أنا وإحنا نيجي ترى تعرفنا وإحنا نيجي ما تيجي إحنا نيجي ترى ما كهوي فصدق وحكفنا عندنا مثلا شرف شريف كان في شباب له كان حاط وحاطان قسمه بلا محل كل واحد جالس يحريه إنجنير فاصل على ورابع وحرب أنا كسؤاله شلي سيدا لسعتي أو ميديا بقى كواركتي يبرع بالشدة waxaa jirtay khudbadii baarlamaanka uu ka jeediyay madaxweynaha Puntland Cabdulle Cali Gaas in qaybteed uu kaga hadlay colaadda gobolka Soolka Ogan oo uu leeyahay Laascaanood maahan London ingiriisna ma bixin kara Laascaanood sidee baa aragtaa wala waa lagu qofsay waxa loo sheegay carruur sheekay dhulka Laascaanood sida maxaa ku jiray Faisal halka hadda dadka ku dhageysanayo u sii sharaxdo waxa ku hadlama Laascaanood ma كان يطلع وردير بيتدان وردير بيتدان وردير واحد كيف يكمل أنا حتى وردير حتى سوبر واسكتشار بس أنا متأكد هذا شو وكشرف بدن وبانتا شو كذا بدن وكمان عندنا وكتاريخ وأنا كذا بدن عيرمون واحد بدن أخبر شغله بالكيميائي غير مجال هو والله ما بعرف كذا ما يمكنه الدول كذا ما يمكنه ما جاء صوت شيء كيف يكون مغرب مثلا واحد فحنكات ومن دوليون مجال سائل ودياريسو مجال دورشلا لكن دورشلا حدود دوليون كورسلو فحدين كورسك قاعدة سلمان بدأ سلمان أنطاق على سلمان فرصة كده ديك بعدين هي كبر بعدين بحكوا كل شيء سلمان مجال كفوا معي كده ديك مجال سائل البحث ويا وحق دورشلا كل دورشلا مجال سائل كورسيا وقفنا لكن كذبت إلى هذا الدجل ولا كذا يقعدوا كذا أتى وحما اللي كهذا بيسوق بوكين رحمه الله هو بوكين يعني كذا هذه waxaa jirta in bishan dabiiqadeeda 26 ilaa iyo 27 bishan shir inuu ka dhaco magaalada Brussels Belgiumka oo Soomaalida lacag lagu soo wareejinayay oo la sheegay in beesha caalamka ay ugu deeqday shirka dib u dhacal leeyahay oo bisha soo socota 16keeda baa la qabanaya ilaa 17deeda Somaliland ma ka qayb sidaas baad u aragtaa shirkan ka siyaasi ahaan أنا كشغل بمشروع الآن يندج يقولوا مثلا الحين عم بنا هيكون هجانا هيكون أو بدنا
taageerka Soomaaliya laguma dagaalamayo waa kee madaxweynaha waa kee ninkaa ka hadlaysa farmaajo haye asubay soo sameeyay meel ka jeedo ilaahay ma badin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dal uma dalkeeda waa warar baa sheegaya in taamada ilaahay waa bixiya taamada ilaahay waa bixiya marka anu farmaajo oo lugnahay inaanu anagu madaxweyne ugu su-aasha ugu dambeysa oo aan raba inaan ku weydiiyo maanta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay xaflad lagu dhameystiray wareejinta maamulka hawada waxaanu la soconay in beri dhexdaasana aad xoogaa hadallo ka keenteen oo diidma ahaa in xamar laga maamulo sideeba arrintan u aragtaan hawada Soomaaliya marka diyaar soo gasho anaga la weydiiyo hadaan ma soo weydiino waxa la isku hayaa waa dhaqaalaha weeye haye madaxa diyaaradaha halka laga hayaana waxa weeye dawladaha international community aqoonsan yihiin waa muqdisho iyo waa Nairobi laga hayaa dagaalooyinka markay diyaaradu meel kala marayaan waxaan isku haynaa waa diyaaradu tagay anaga loo tagay dhaqaalaha diyaaradu qaadankiisa si xaq u qaybsano inta diyaarada kasoo wareegsano aynu qaasi xaq oo taasoo ku heshiiyay berigi in walba afartan doorka qaado wala doorka qaado lagu heshiiyay awood Soomaaliya iyo wareegga ma jirto ayada hargeysa ee iyo wareegga diyaarada ma soo qaadayna adaylan aanay ku sheegin in anagu permission siino taasoo falsanka laakiin hay'adda dadka waxa laga hayaa magaalada ay caasimada lagu hayaa ku saaray daafiyo hagi karta aba eepa waa dhaqaalaha waxa la isku hayaa dhaqaalaha marka miyaa qaybsanaysaan macnaha aad iyo aad baa umahadsan tahay injineer Faysal Cali Waraabe waktigaaga waa kaaga mahad celinayna saacadaas gudoomiye